wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mudane Xasan Daahir Dembiil oo warbaahinta dawladda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa shacabka Soomaaliland ugu bushaareeyay in dhaqaale wanaagsan iyo shaqo abuur uu naga soo gali doono heshiiskii dhexmaray dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. heshiiskana wuxuu tusayay international community-gu inay tixgelinayaan wuxuu horseedi doonaa ixtiraaf wuxuu horseedi doonaa dhaqaale wuxuu horseedi doonaa inuu dhammaan kaabayaasha dhaqaaluhu ay kor u kacaan waxa runtii markay heshiiska la saxay runtii aniga aad iyo aad bay ii farxad gelisay waxaan u arkaa in ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan wax soo kordheen waxa uu kordhay waxa weeye markaad eegto ummadina kalideed ma noolaan karto ummadina kalideed iskuma tashan karto wax ma qaban karto wixii aynu qabanay ee aynu ummadna Soomaaliland nahay waan qabsanay waana intaynu gaari karaynay intii ugu sarreysay baan qabsanay. Mudane Xasan Daahir Dembiil ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilligii ay dawladda Soomaaliland ay adduunka wax la qaybsan lahayd. tani waxay tusaysaa in aan gaarnay xilligii adduunyada wax la qabsanaynay adduunyadina ay tixgelisay iyaduna inoo baahan tahay inaguna u baahana halkaa waxa ka imanaya maadaama heshiiskii koobaad maanta dhacay waxa sii kordhi doona kaabayaasha dhaqaalaha kale sida matalan light la helo ka jaban qiimaha maanta jira oo ay bulshadu ama dadka dibadaha investmentiga doonayaan lacag gashadaan ay ku soo dhiiradaan taasina waa qayb weyn waxa soo kordhi doona in la helo wadooyinku ay ka ballaadnaadaan kuwa maanta jira oo fishankeennii ama hiigsigeennii ahaa 2030 inaanu isku xidhno degmo iyo gobolba ay wada laami dalku noqdo inay kaba soo horeyso tahay horseedo in kaabayaashii dhaqaaluhu soo degdegaan oo expectationka ama filantaankii aan filaynay waqtigaasina wax qabsoomaan ka soo degdegaan ka soo horeeyaan. ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa ku taaniyadeeyay arrinkaasi. marka runtii waxaan guul arkaa waxaan baleenayaa waftiga hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee saaxa ku dhiiraday waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan baleenayaa runtii geesinimada iyo dhiiranaanta wanaagsan ee lagu dhiiraday in la galo heshiis